After 4 years, human remains found washed upon Douglas Lake have been identified as a man from Knoxville. 10 Maaj 2019 booliiska ayaa ka jawaabay wicitaan ka yimid nin sheegay inuu degan yahay magaalada kaasoo arkay bac aad u weyn ay ku jiraan wax uraaya taasoo taala xeebta Douglas Lake ee waddanka Mareykanka. daqiiqado yar kadib booliiska ayaa soo gaaray goobtii boorsadii ayayna ka soo saareen xeebta iyagoo isku dayay inay hubiyaan waxa ku jira balse cidna ma filayn inuu ku jiro qof meyd ah oo hilibkiisa la jarjaray. booliiska ayaa ka helay boorsada gudaheeda nin ay ka maqan yihiin madaxa iyo labada gacmood. balse waa kuma qofkan maanta waxaan eegaynaa baaritaanka kiiskan argagaxa leh ee meydkii boorsada la geliyay kaasoo laga jaray madaxa iyo gacmaha. laakiin intaan bilaabin muuqaalkeena maanta haday tahay markii kuugu horreysay soo booqato channelka fadlan ku soo biir adigoo saaraya subscribe si muuqaal walba aan soo gelin uusan kuu dhaafin like iyo share nagu dhiirigeli mahadsanid. kiiskan ayaa ka dhacay gobolka Tennessee ee waddanka Mareykanka. gobolkan ayaa caan ku ah digaaga qalalan sidoo kale gobolkan ayaa hooy u ahaa qaar ka mid ah xidigaha muusiga ugu caansan adduunka sida Elvis Presley, Dolly Parton iyo Justin Timberlake. Tennessee waxaa loo yaqaanaa gobolkii iskaa wax u qabso iyadoo qaar badan oo ka mid ah muwaadiniinta ay samaysteen hal maalin ay u adeegaan dadka danta yar xilliyada adag. sidoo kale waxay caan ku tahay buuraha waaweyn ee loo yaqaano buurihii sigaarka kuwaasoo aad moodo inay ku hareeraysan tahay eeryaamo. maanta kiiskeenu wuxuu nageyn doonaa gobolka Tennessee ee waddanka Mareykanka. March 10 2019 maalin axad ah ninkan ayaa soo wacay booliiska kaasoo u socday gurigiisa oo ka agdhawaa xeebta Douglas Lake ee waddanka Mareykanka. balse wuxuu arkay ayaa ahaa wax cajiib ah shandad ama bac weyn oo biyaha dhexdeeda socota. wuu dhawaaday wuxuuna dareemay inay yihiin wax culus cabsi darteed wuxuu sameeyay ayuu garan waayay laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan ayuu garaacay nambarka gaaban ee booliiska degmada. wuxuu u sheegay booliiska inuu arkay bac aad u weyn wax culus urayana ay ku jiraan. booliiska ayaana wax waqti lumin iyagoo si dhaqsi leh u yimid halkii uu ku sugnaa ninkii soo wacay. laakiin magaaladan xeebaheeda ayaa ah meel aad looga isticmaalo waxyaabaha kontrabanka gaar ahaan xashiishka sidoo kale maadada kokaayinta iyo cirbadaha daroogada ka samaysan. dhanka kale gobolkan ayaa leh dhul buuraley ah oo miyiga ku furan taasoo u sahlaysa dadka wax tahriibiyay inay u adeegsadaan xeebahan walxaha kontrabanka si ay ugu gudbiyaan gobolada kale. booliiska ayaa isku dayay inay furaan bacdi waxayna ka soo saareen qof meyd ah balse laga jaray madaxa iyo gacmaha. booliiska ayaa isla markiiba u diray meydka xarunta dambi baarista meydadka ee gobolka. sidoo kale wakiilo ka socda xafiiska baarista ee Tennessee oo uu weheliyo ku-xigeenka xafiiska iyo xafiiska xeer ilaalinta degmada afraad ayaa bilaabay baaritaan degdeg ah si loo xalliyo kiiskan. si wada jir ayay u bilaabeen baaritaanka iyagoo baaraya aagga meydka laga helay iyagoo rajaynaya inay ogaadaan wax kastoo caddayn u noqon kara horseedi karana in la aqoonsado meydkan. iyagoo baaritaano ku samaynayay markhaatiyaasha suurtagalka ah iyo milkiilayaasha kale hantida ku leh xeebta Douglas Lake. balse weli wax ma helin booliiska xitaa ay ka shakiyaan maalmo ayaana sidaas ku gudbay. galabnimo Arbaca 13 Maaj 2019 taliyaha saldhigga degmada Jeff Coffey ayaa warbaahinta u sheegay in si bareera loo dilay lana jarjaray balse aysan hayn sababta ka dambaysa dilkiisa. balse baarayaasha ayaa xaqiijin waayay waqtiga rasmiga ay la dilay meydkan. si kastaba ha ahaatee baarayaasha shaybaarka ayaa xaqiijiyay in meydkan da'diisa ay ku qiyaaseen inta u dhaxaysa 30 ilaa 45 jir halka dhererkiisana ay ku qiyaaseen 5 feet iyo 7 inji ama 5 feet iyo 10 inji. balse meydkan ayaanan lahayn wax gacmo ah taasoo laga yaabo in laga heli lahaa tattoo raacraacan u noqon lahayd booliiska ama baarayaasha. sidoo kale madaxa uusan lahayn ayaa baaritaanka sii adkaysay sababtoo ah baarayaasha ayay u fududaan lahayd baaritaanka indhaha iyo faraha taasoo diiwaanka database-ka laga heli lahaa balse kiiskan ayaa sii adkaaday. balse baarayaasha ayaa bixiyey sharaxaad kooban oo ku saabsan walxaha laga helay. wuxuu xirnaayay dhaheen funaanad madow oo ah nooca t-shirt James buluug ah suun madow oo ay ku qoran tahay Gerald iyo kabaha madaxa faraska leh. laakiin ma jirin wax gaar ah oo laga helay jirkiisa ama bacda meydka. baarayaasha ayaa siiyey meydka magac cusub kaasoo ahaa John Dye waana la aasay bil kadib. koox ka mid ah baarayaasha shaybaarka ayaa abuuray profileka DNA-diisa si ay u helaan labada xog ee muhiimka ah ee ka maqan database-ka taasoo ah madaxa iyo gacmaha. waxaa markii hore loo maleeyay in magaciisa uu ahaa Gerald kaasoo ahaa magacii ku daabacnaa suunka uu xirnaa meydka waqtigaas. laakiin ma jiro qof magaca Gerald ku qoran xogta la hayo marka lala babardhigo John Dye. balse ma jiraan wax rasaas ah oo ku yaalay jirka meydka sidaas darteed baarayaasha waxay bilaabeen inay adeegsadaan hab kale si ay u aqoonsadaan. baarayaasha markaan waxay u jeesteen warbaahinta wakaaladaha wararka ayay siiyeen sharaxaad ku saabsan John Dye halka laga helay. si kastaba ha ahaatee dhowr bilood kadib
raadin badan ma jirin wax kaloo baarayaasha samayn kareen keliya inay u jeestaan hab cusub kaasoo ahaa baarista abtirsiinta hidisidayaasha si loo aqoonsado dhibanaha. xafiiska baarista Tennessee ayaa u rogay baaritaanka tiknoolajiyad cusub iyagoo bilaabay baaritaanka hirarka. 5 sano ee la soo dhaafay baaritaanka abtirsiinta hidaraaca ee la shaqaynayay astaanta hidisidayaasha DNA-da ayaa awooday inay beddelaan astaanta hidaha ee John Doe iyadoo lagu xiraayo magacyo kale oo dhowr ah oo laga keenay mareegaha abtirsiinta mutadawiciinta. si kastaba ahaatee processkan ama geedi socodkan wuxuu qaatay wax ka badan intii la filayay, laakiin baarayaasha ayaa waday dadaalkooda taasoo ay ku xaqiijiyeen markan inay hayaan magacyo dhowr ah oo ka mid ah shaybaarka DNA-da suurtagalka ee u dhigma John Doe. baarayaasha ayaa baaritaan ku sameeyay dhowr qoys si ay u ogaadaan inay leeyihiin wax u dhigma DNA-da ama astaanta John Doe. booliiska ayaa ogaaday qaraabo badan oo dhanka biologiga ee suurtagalka ah in John Doe uu ka mid yahay carruur badan oo loo dhiibay dad si ay u korsadaan iyagoo bixiyay macluumaad muhiim ah, balse sheekada weli waa biology. sidoo kale qoys kale ayay baaritaan ku sameeyeen baarayaasha biologiga. sanad kadib July 2021 natiijadu waxay sheegtay in 2 qoysba ay xiriir adag la leeyihiin John Doe, laakiin aqoonsigiisa weli waa la xayiray taasoo ahayd caqabad haysatay baarayaasha waayo waxaa la weysanaa cidda korsatay. ugu dambeynna waxaa la gaaray wakhtigii baarayaasha iyo cilmi baarayaasha ay si qoto dheer loogu eegi lahaayeen nidaamka daryeelka korinta si ay u helaan qoyska mas'uulka ka ah korintiisa. kadib bilo badan hay'adaha kaydinta daryeelka kobcinta ugu dambeyn waxay aqoonsadeen qoys ku nool magaalada yar ee Knoxville ee gobolka Tennessee. baarayaasha ayaa si rasmi ah u shaaciyay magaciisa dhabta ah bishii January 2023 ee sanadkan aynu hadda ku jirno. wuxuu ahaa 28 jirka Errol Joseph Bisafrado kaasoo dhashay July 29 1991. wuxuu ku dhashay kuna koray magaalada yar ee Knoxville. magaca hooyadiis ayaa lagu sheegay Linda Bisafrado. sida ku cad taariikhdiisa wuxuu lahaa dhowr walaalo wuxuuna dhigan jiray dugsiga sare ee Cherokee. intii uu iskuulka joogay wuxuu xubin ka ahaa naadiga tababarayaasha saraakiisha kaydka. Errol sida laga soo xigtay taariikhdiisa wuxuu ku raaxaysan jiray ciyaarista kubadda. sidoo kale wuxuu aad u jeclaa fardaha. markii uu ahaa 23 jir Errol ayaa lagu xiray weerar ka dhacay gudaha magaalada. May 2015 waxaa lagu sii daayay damaanad taasoo ay bixiyeen lacag dhan $500. waqti yar kadib Errol qoyskiisa ayaa la helay waxaana lala wadaagay geerida wiilkooda. waxaana la siiyey haraadigii meydka taasoo lagu gubay hoyga aaska ee qubuuraha Dogwood. qoyskiisa si cad uga maysan hadal noloshiisa iyo dhimashadiisa tan iyo markii ay gubeen. sanadii 2019 baarayaasha ma aysan shaacin sababta Errol aanan loo soo gudbin inuu ka maqan yahay qoyskiisa. si kastaba ha ahaatee sidoo kale kooxaha TikTok ayaa soo geliyey sawirka Errol iyagoo dadka ka codsanaya inay la raadiyaan gacan ku dhiiglaha Errol dilay. inkastoo aysan jirin aragti rasmi ah ee ku saabsan waxa dhabta ah ee ku dhacay Errol Bisafrado, dilkan ayay baarayaashu ku saadaaliyeen inuu dhacay suurtagalnimada dhimashadiisa arxandarrada ah noocyo badan. aragtida koowaad ayaa ah Errol inuu ka cararayay guriga uu ku noolaa. dad badan ayaa aaminsan inuu la ordayay dad ku lug lahaa faldambiyeedyo oo uu noqday markhaati u baahan in la aamusiyo. sidoo kale laga yaabo inuu ku sugnaa meel qaldan iyo wakhti qaldan. sidoo kale booliiska ayaa aaminsan in dambi uu horay u geystay Errol uu ka argoostay qofkii uu dhibaateeyey. waa hore Errol waxaa lagu soo oogay rabshad uu geystay. sidoo kale dhimashadiisa waxay noqon kartaa shil cabsi darteedna dilaaga wuxuu isku dayay inuu meydka iska tuuro si uu uga baxsado cadaaladda. aragti kale ayaa ah in Errol uu ku lug yeeshay ka ganacsiga daroogada maandooriyaha kadib markii uu iskaga tegay gurigooda. qaar ka mid a aragtida dadka ka dhiibtay baraha bulshada ayaa qaba in Errol uu ku biiray koox burcad ah oo ku lug leh bixinta waxyaabaha sharci darrada iyo walxaha kontrabanka. waxay aaminsan yihiin inay dileen koox burcada, balse waxaas oo dhamay waa aragtiyo ay sameeyeen dadka ayna tahay mala awaal aan xaqiiqo ahayn. laakiin xafiiska baarista Tennessee ayaa weli ku raad jooga raadadka la xiriira dhimashadii Errol Joseph Bisafrado maadaama uu weli baaritaan ku socdo. balse xafiiska ayaa ka codsaday dadweynaha qof kasta oo yaqaana Errol ama wax fikrada ka haya halka uu ku sugnaa markii uu dilka dhacayay inay la soo xiriiraan waaxdooda haddii ay helaan macluumaad gacan ka geysan kara xalinta kiiskan. abtirsiinta kiiskan ayaa lagu xaqiijiyey inuu yahay beddelka aqoonsiga dhibanayaasha aan la aqoon ee kiiskan qabow. waxayna u rajeeyeen inay gacan ka geystaan xiritaanka qoysaska ay dhibaatadu ka soo gaartay aamusnaanta. kiiskan waxaa maragma doonta ah in baarayaasha ay ku dadaalayaan inay waajibaadkooda gutaan islamarkaana ay cadaaladda hor keenaan dilka sida xun looga aamusay. haddaba daawade sidee u aragtaa kiiskan iyo waxa keeni kara geerida naxdinta lahayd ee Errol Joseph Bisafrado?
nagula wadaag xagga hoose waad ku mahadsantahay la socoshadaada.